waa qaybtii labaad sheekada Cavalieri. Sheekadan oo dhammaystiran waxaad kaliya ka daawan doontaan channelka aan YouTube-ka ku leenahay ee Waaya Arag. Waxay qaybtii hore sheekada inoo maraysay inankii oo warqad suuliga ugu reebay inantii uu ka helay. Sheekadii oo inoo sii socotana ka bogasho wacan. Nolosha habeenkii ama habeen socodku waa uu ka xamaasad iyo qurux badan yahay maalin socoshada magaalada. Sida ay magaaladu u shidan tahay, isu socodka dadka iyo ganacsiga sida suuqyada waaweyn, supermarketyada, carwooyinka iyo tagaasida iyo sida ay saxmad u yihiin baararka shaaha, waxaad dareemaysaa in xasiloonidii, nabaddii iyo horumarkii dalka inuu dib u soo laabanayo. Waxaan istaagnay meel feel loogu jiro jalaatada ice creamka. Waan yara daalnaa. Qof ayaa si lama filaana iskay soo hor istaagay. Waaba gabadhii, waxay igu tiri haay oo la micno ah salaan haye camal ah. Way sii dhaaftay, waxayna gashay gaari meesha u taagnaa, wuuna sii dhaqaaqay gaarigii. Daalba aduu ku hayay, jawi kale ayay i gelisay sida kartida leh ee ay ugu dhiiratay inay isoo hor istaagto. Socod dheer kadib waxaan si nabad la ugu soo laabanay guryaheennii aniga iyo saaxiibaday. Baashaalkii Jimcaha kadib waxaan ahaa mid aad moodo inay noloshiisa farxad ku soo siyaaday. Gabadhii aan arkayay Jimcihii ayaad moodaa inay noqotay furo ka mida furayaasha farxaddayda. Mana aqaana inaan dib ula kulmi doono. Dhab ahaantii waxaan dareen u qaaday gabar aan aqoon u lahayn xitaa magaceeda, lambarkeeda amaba wax ku saabsan dhankeeda. Xilli kastoo aan keli noqdo, waxaan ahaa mid iyada uun ka fikira, sababtoo ah habeenkii iskay soo hor istaagaysay hadday isbiirsan lahaayeen dhalaalka dhabankeeda iyo dhoola caddeynteeda, weliba si ay kalgacal ku jirto. Waxaan ku misaali lahaa inay nalalka oo idil habeenka ay lumin lahaayeen iftiinkooda, oo sidii xidigii ay iyaduna dhalaalkeedu ina wada deeqsiin lahayd sidii caddo 15 ah. Damaashaadkeennii xigay. Qadka ayaan furay, waxaa ii soo dhacay fariimaha WhatsApp-ka ee UB Group oo loo soo gaabiyey United Brothers Group. Waxaa wada sheekaysanayay Maahir iyo Khalid. Waxaan u qoray salaan. Khalid ayaa iga qaaday. Maahir ayaa igu yidhi Faysalna meeye Axmedow. Waxaan ku dhahay hadda dhow buu iga tegay, malaha weli guriga ma uusan gaarin. Markaabaa Khalid igu yidhi beri waa Jimce, xaggeenu qabanaa. Dood wadaag dheer kadib waxaan ku guulaystay inaan ka dhaadhiciyey inaan baashaalka Jimcaha ku soo wada qaadanno meeshii aan Jimcihii hore aadaynay. Waxaan Khalid ku dhahay Maahirna u sheeg, hadalkiisa uma jeedee, waa uu seexdaan u malaynayaa. Khalid ayaa igu yidhi waqtigiisa ayaa la gaaray. Ciyow seexashada waa lagu yaqaanaa oo dadka caafimaadka badan ciyow ayay seexdaan. Maahir waad naga caafimaad badan tahay ayaanu dhahnaa, sababtoo ah haddii aan isku dhahno waa cayilan tahay, waa uu nala dagaalaa, mana u adkaysan karno qanjaruufadiisa xanuunka badan. Waxaan ku rajo weynaa inaan qoftii halkaa dib isugu arki doonno. Markii aan baarkii nimid ayaan hareeraha eegay, laakiin maysan joogin goobta. Waan yara niyad jabay, haddana waxaan sii arkay warqaddii aan fariinta ugu qoray oo halkeegii suran. Waxaan soo abbaaray halkii ay warqadda surnayd. Markii aan kala furay warqaddii, misna jawaab ayaaba gadaal kaga qoran. Farxad baa qalbigayga buux dhaafisay. Meelaan isgeeya ayaaban garan waayey anigoon akhrin jawaabta. Kadib ayaan bilaabay akhrinta warqadda. Waxay igu soo jawaabtay mahadsanid, laakiin maxaa kaa galay hadday indhahaygu qurux badan yihiin? Waxay doontaa igu soo jawaabto waxaa ii farxad ahaa inay warqaddayda ku qabato gacmaheeda quruxda badan, ayna ku akhriso indhaheeda aad moodo kuwii xuuralcaynta. Markaa kadib ayaan soo dhex galay saaxiibadayda. Markaabaa Faysal igu yidhi saaxiib waadba naga soo habsaantee, ma qof baad soo arkatay? Si kaftana ayaan ku dhahay haa, laakiin kistoo adigay kuu qaab ekeyd. Markaabaa kaftankeennii iyo wada sheekaysigaynii iska sii wadanay.
waxaan si kadiisa u maqlay qof dhahaya, Cavalieri, markasta waxaad iska jeceshahay inaad dalabka inaga soo daahiso. Markaan eegay, waaba iyadiiba. Waxaadba moodaa in hadalkeedu inuu sidii magnadkii ii soo jiidanayo. La soco qaybaha kale. Sheekadan Cavalieri oo dhammaystiran waxaa keliya laga daawan doonaa janalkan Waaye Arag. Asxaabtaada ku soo xir oo muuqaalka inoo sheer gareeya.